بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. waxaan ka soo hadalnay dhibaatooyinka ay leedahay umusibiyaanka ama taabicada ama dabaysha wax loo yaqaan. waxaan ka hadli doonaa insha allahu tacaala waxyaalaha qofka iskaga daaweyn karo iyo waxyaalaha u fiican inuu qofka si wanaagsan isku ilaaliyo, cibaadada Ilaahay inuu isku ilaaliyo, inuu salaadaha xifdiyo, waqtigoodana xifdiyo, inuu qofka ku seexdo insha allahu tacaala weyso, habeenka markuu seexanayana uu akhriyo aayad kursi iyo adkaarta, inuu ruuxa ka fogaado wax allo iyo wixii Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka xaarantinimay, inuu laazimo qofka Ilaahay subxaanahu wa tacaala awaamirtiisa wuxuu Ilaahay ku amray, in aad badiso istikfaartood ogtihiin waxa Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku soo arooriyey fadaa'il. sadaqada ood badisa, nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay ku daaweeye kuwiina xanuunsan sadaqaadka, acmaasha khayrka ood badiso, masaakiintood u naxariisato, agoontood wax tarto, in aad iska ilaaliso in aad ku mashquusho heesaha ama in aad filimaanta aad mutaabacayso filim uu kugu dhiibo. waxaad ogaataa qof meel loo wato shayaadiin ku shaqaysanaysa inaad tahay, iska jooji. in aad gurigaada ka bixiso wixii sawir lianna sawirada waxay soo jiidanayaan shayaadiinta, gurigana waxay ka ciirinayaan malaa'igta, wax fiican ma aha. mar walba inaad dhahdo bismillaahi raxmaani raxiim ama bisinka aad haysato ama tacawudka aad haysato, acuudu billaahi min ashaydaani rajiim, shaydaanku ka cararaya. in aad joogtaysa adkaarta xusnu muslimka adkaarta galabkii subaxiiba la akhriyay inaad joogtayso. suuratul baqara mar walba gurigaada inay ka daarnaato, haddii aad taqaano Ilaahay ku barina aad ku akhriso. waxaad ogaataa hal fadhi haddaad gabaryahay ama wiil yahay haddaad ku akhrisa baqaro, waxaad ogaataa inaad qof fiican tahay. haddii baqara ay kugu adkaatana, midda kale waxaa loo baahan yahay markaad baqara guriga ka daarto inaad adigana dhegeysanayso, inay iska daarantay adigana aad mashquulsantahay ma aha. ruqiya sharciya inay mar walba guriga ka daaran tahay, Ilaahay subxaanahu wa tacaala inaad tala saarato, tawakulku waa wax weyn, inaaba in lagaa helo od Ilaahay usoo laabato, isticaano in lagaa helo od Ilaahay bes kaalama weydiisato. waxyaalahaas oo dhan iyo waxyaalo kale waxay ka mid tahay waxyaalaha mataqaanaa lagula dagaalama shayaadiinta hadda aan kasoo sheegnay oo musibiyaanka ah. wixii kale insha allahu tacaala culummada waxaad la xiriireysaan cilaajlayaasha si ay Ilaahay subxaanahu wa tacaala inkaga caafiyo. waxaan inkugu darayaa insha allahu tacaala waxyaalaha inuu qofka uu ku qabaysto loo baahan yahay. waxaa ka mid geedka la dhaha riixaanta iyo sidriga, iyo geedka sidri la dhaho waa geed isagana, iyo maa wardi, biyaha maa wardiga, iyo kaafuurka iyo milixda mataqaanaaye hindiya meelahaas ka imaado, iyo khalka tufaaxa. waad ku akhrinaysaa qur-aanka, baqaraad ku akhrinaysaa, suuratu naas baad ku akhrinaysaa, faatixaad ku akhrinaysaa, aayad kursi baad ku akhrinaysaa, aayatul ibdaal sixri baad ku akhrinaysaa, aayatul kifaaya wax la dhaad ku akhrinaysaa, ikhlaas baad ku akhrinaysaa, suuratul ikhlaas waa qul wallahu axad, suuratul falaq baad ku akhrinaysaa, naasna waad ku akhrinaysaa. biyahaas waadna ku qabaysan, waadna cabi, meel fiicanna waad ku shubi insha allahu tacaala. inuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala annaga iyo adinkaba naga caafiyo xanuun walbaan Ilaahay ka baryayaa. intaas oon soo koobnay waxay ka mid tahay waxyaalaha looga daawoobayo umusibiyaanka ama taabicada. waxyaalo fara badan oo kalena waan in soo wadnaa insha allahu tacaala. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.